Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada aqoon-doon channel. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago qaabka Windows 10ka looga dhigto dark mode ama loo isticmaalo dark theme-ka uu leeyahay Windows 10ka. Balse ugu horeyn waxaan isweydiinaynaa maxaa faa'iido ah oo inoogu jirta inaan adeegsano dark theme-ka uu leeyahay Windows 10ka. Dhammaanteen waxaan wada adeegsanaa kombiyuutaro ama laptopyo anagoo u adeegsano howlo shaqo ama waxbarasho. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan adeegsano xilliyo aad u dheer, balse kombiyuutarku default ahaan wuxuu leeyahay light theme kaasoo indhaha aan u fiicnayn. Waxaa laga yaabaa haddaan cabaar adeegsano inaan indhaheena ka dareemno xanuun. Dark mode-kan ama dark theme-kan wuxuu kaa caawin doonaa kombiyuutarkaaga inaad adeegsato xilli walba, xitaa inaad adeegsan karto habeenkii xilliyada mugdiyada ah. Balse waxaa xusid mudan haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan inaad like saarto, share dheh si aad u gaarsiiso asxaabtaada kale. Haddaad nagu cusub tahayna fadlan soo dhawow channelkan, subscribe dheh oo taabo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaal walba aan soo dhigno. Ugu horeyn intaan dark theme-ka isticmaalin ama dark mode-ka waxaan rabaa inaan idin tuso default-iga ama sida caadiga ah kombiyuutarka ama laptopka theme-kiisa. Windows 10ka wuxuu leeyahay theme default ee light theme-ka ah. Sida arkaysaana waa kana markaan meel walba soo furno waxaa inoo soo baxaya in shaashadii oo dhan ay tahay mid cadaan ah, indhahana u maroona. Marka muuqaalkan waxaan ku baran doonaa qaabka aan u bedeli lahayn theme-kan oo aan u adeegsan lahayn Windows 10ka dark theme-kiisa ama qaab muuqaalka uu leeyahay Windows 10ka midka dark-ga ah ama madowga ah. Ugu horeyn marka waxaan leenahay start menu, kadib waxaan qoraynaa registry editor, kadib waan ku dhufanaynaa. Waxaad leedahay yes. Intaa markaan dhahno waxaa inoo soo kici doonta qaybtan. Ugu horeyn waxaan ka tegaynaa HK local machine, kadib waxaan soo furaynaa tigtaas. Intaa markaan soo furno waxaan tegaynaa software. Software markaan tagno waxaan sii furaynaa Microsoft markaan sii furno waxaan tegaynaa haddana Windows. Windows markaan soo furno waxaan sii furaynaa haddana current version. Current version waxaan kasii dooranaynaa themes. Themeska markaan soo furno waxaan leenahay right click, waxaan dhahaynaa kadib new, waxaan kasii dooranaynaa key, kadibna waxaan qoraynaa personalize. Aadna iskaga hubi spelling-ka oo u qor sidaan u qorayo. Intaa markaan dhahno waxaan imaanaynaa qaybtan, waxaan leenahay right click, waxaan dhahaynaa new, kadib waxaan ka dooranaynaa dword 32-bit value, kadib waxaan ku qoraynaa apps use light theme. Mar walba waxaad iska hubinaysaa qaabka u qorayso. Waan ka soo baxaynaa qaybtan. Waxaan tegaynaa haddana HK current user. Waxaan maraynaa step-kii aan hadda soo marnay. Waan soo furaynaa, kadib waxaan ka dooranaynaa software, waxaan kasii dooranaynaa Microsoft, kadib waxaan ka dooranaynaa Windows markaan soo doorano waxaan ka dooranaynaa haddana current version, waxaan kasii dooranaynaa ugu dambeyn themes. Waxaan tegaynaa personalize, isla sidii oo kale haddana waxaan samaysanaynaa dword. Waxaan leenahay marka right click new, kadib waxaan ka dooranaynaa dword 32-bit. Isla sidii oo kale waxaan leenahay marka apps use light theme. Intaa markaan dhahno marka dhammaan waa isaga soo baxaynaa.
hadda marka waxaan tegaynaa qaybta settingka. waxaa leedahay start menu, kadib waxaad tegaysaa setting. waxaan ka tegaynaa marka personalization. waxaan ka dooranaynaa colors. kadib halkan ayaan ka soo dooranaynaa dark. saa arkaysaan hadda themekaan isticmaalayno waa mid dark ah, wuxuuna inoo sahlayaa inaan kombiyuutarkeena adeegsano xilli walbo, sida xilliyada habeenkii ah oo mugdiga ah. waan isaga soo bixinaa si aan u xaqiijino marka meel walba aan soo kicinaynaa. tusaale ahaan waxaan soo kicinaynaa file managerka. saa arkaysaan file managerka gebi ahaanba waa dark theme. waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka hesheen kana faa'iideen wax badan. intaan ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaal ka xiiso badan, waxaan idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.